السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقيبتيني لبعض قصص النبي عليه الصلاة والسلام إنه شكي هذا وحين قصورنا مدرسة نور الدين شيكدنا waxay ku bilaabanaysaa sidatan halsay subscribe-kan ha ilaawin قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون sida u jeegdiinba Faisal oo quraankiisa cashirka quraanka akhrisanaya ayaa waxa imaanaya agtiisa imaanaya Xaamid oo raadiyo dhageysanaya isagana ka dhageysanaya quraan tajwiid ah doonayana in uu ka xafido Faisal ayaa yiraahday in adeero ujeeda waxaan akhrisanaya quraan iga dami raadiyaha ama meel kale fadhiiso asagana wuxuu yiraahdaa raadiyo aniga waxaan ka baranaya tajwiid ayaan ka baranaya carabka ayaana ka saxanaya macallin hebelna waan dhageysanaya Faisal ayaa yiraahday waayahay meel kale la tag asagana waxa uu yiraahday maya meeshan ayaa awalba aan wax ku akhrisan jiray meeshayda ayaan fadhiyaa Faisal ayaa yiraahday waa ogtahay anaka kaaga soo horay meeshan ee walaalow meel kale la tag raadiyo korkayga ka shidan aashar ma akhrisan karo murankoodiina waa u batay ilaa ay ku sigteen in ay isku gacan qaadaan ayagoo qir kala taagan ayaa ilaahay amarkiisa waxa la soo kulmaya macallinkii madrasada ee macallin Nuuruddin waxa uu leeyahay maxaad isku haysateen Axmed Xaamid iyo Faisal ayaa wuxuu yiraahday macallin aniga oo quraan akhrisanayo ayaa Xaamid imaaday raadiyo ila soo fadhiistay iga damina waa uu diidan yahay macallinkii ayaa yiraahday saway Xaamid maxaad raadiyo u korshitay wuxuu yiraahday quraan akhrisanayay macallinka ayaa yiraahday anigu Faisal waan aqaanaa waa nin dadaal badan doonayna casharadiisa in uu ka baxo dhaqso adiganaas markii horeysay maalin weyn waxa la diriirisay ama isaysateen Axmed adiga ma waxa tahay dib u joog Xaamid ayaa yiraahday maya macallin anigu waxaan ka dhageysanay quraan ayaan ka dhageysanay waxaana doonayay in aan quraanka ka xafido ninkan asaa raadiyo iga tagtay anigana xor ayaan ahay raadiyaha meel kaasaan ku dhageysan karaa dibna asaga kuma korhayo macallinkii ayaa yiraahday Xaamid arinta sida aad moodiyay ma ahan xorriyadana waxa ay leedahay wado ay leedahay balna fadhiisiya insha Allah waxaan ka qiisan doonaa ay ka sheekeyn doonaa qiso oo nabiga calayhi salaatu wasalaam inoo sheekeeyay taas oo na tusayso xorriyadda waxay tahay qof kasta waxa uu xaq u leeyahay oo xor u yahay ardaydiina dhammaantood waa ay fadhiisteen ayagoo isku diyaarinaya in ay dhageystaan sheekada macaan ee sheekha ama macallinkooda Nuuruddin ugu sheekeyn doono macallinkii ayaa yiraahday nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa nooga sheekeeyay sheekadan wuxuu yiraahday nabiga calayhi salaatu wasalaam dad musaafiriin ah ayaa waxa ay raaceen doontii markii ay raaceen waxay ahayd xilli kuleel ah doontana waxay kor safraysay wabi waxay ayna lahayd laba qaybood oo qaybta hoose iyo qaybta kore kuleelkii jira awgeed iyo huurkii dadkii waxay ka soo carareen qaybtii hoose ayay ka soo carareen dhammaantoodna waxay soo wada fuuleen qaybtii kore ayay soo fuuleen kadibna doontii waxay ku sigatay in ay dhinac u guddoonto ama ay biyihii ay gasho waxay u imaadeen dadkii naaquudihii ama darawalkii doonta waxay dhaheen u jeeda dhibka taagan ee dadkan kala meelay oo qaarna hoos gey qaarna kor u daay waxa uu yiraahday taas anigu ma yeeli karo idinka coqaal leedihiin odayaal ayaa leedihiin isqaybiya waxay dhaheen anaga war kala maqli mayno u jeeda ilaa imaanto dhan waa murmayna ee dadka niyahow kala tartiibi bal wuxuu yiraahday dhammaantiin waxa idinka soo wada qaaday lacag siman ayaa idinka soo qaaday qof si kor gooni loo kareeyna ma jiro iyo qof hoos loo kareeyay laakiin waxa fiican in la heshiiyo wax badan ani doonta aan soo waday dadkana aqligooda waan aqaana istartiibiya oo qaybna hoos aadaan qaybna kor aadaan laakiin taladii uu naaquudii soo jeediyay waa lagu heshiin waayay cabaar markii warkii socday ayaa mid dadkii ka mid ah tala soo jeediyay waxa uu yiraahday ka waran haddii la qori tuurkaas qaybna hoos aadaan qaybna kor joogaan ninkii hoos soo baxda hoos u wareego ninkii kor soo baxdana kor joogo naaquudiin wuxuu yiri intaas waa tala fiican haddii la yeelayo dadkii ayaa taladii loo soo bandhigay dhammaanna waxa isku raaceen in dadka loo qori tuuro oo waxay dhaheen family qoys ama qoys loo qori tuuro shakhsi loo qori tuuro nin alla ninkii qori tuurkaas u soo baxo hoos asoo raaliya hoos u aadaya kii ay kor u soo baxdana kor ayuu joogayaa taladii ayaa lagu heshiiyay
kadibna waxaa la sameeyey qorituurkii dadkii loo qorituurayay oo shaqsi ayaa lagu aadiyey, famil ayaa lagu aadiyey. dadkii qaarna kor ayaa usoo baxday inay hawadii kore ay joogaan, qaarna waxaa usoo baxday in ay hoos ay u wareegaan, yacni qaybta hoose ay degaan ayadoo oon cid eedeynaynin. sidaas ayaa safarkii lagu galay, ayada oo safarkii lagu raaxaysanayo, qaybtii korena hawo fiican helaan, qaybtii hoosena ay huurkooda ay ku jiraan, qolo kastana ay ku qanacsan yihiin nasiibkooda waxa uu ufsiiyey. sidaas ayadoo safarkii lagu galay, safar macaan lagu jiro, ayaa niman hoos joogay waxa ay dareemeen oon. mid ka mid ayaa wuxuu yidhahda kor ayaan aadayaa, waxaa inoo soo qaadayaa biyo. korkii markii uu tegay, rag meel fadhiya ayuu u tegayaa, wuxuu leeyahay waxaan rabay biyo. ilaan waxay dhaheen maxaa soo doontay, hoosa kuusoo aaday, kor kasoo doontay. wuxuu oon ayaan dareemay ee waxaan soo raadayay biyo. waxayna la dhaaminayaan biyihii markii uu qaato uu cabo oo saaxiibkiis u tagay oo biyo cabi, ayaa dadkii hoos ku jiro oo dhan waxa ay yidhaahdeen anagana waxaan rabnaa biyo. kadib waxa uu soo aaday kor asaga oo biyo soo doonay. biyihii ayuu qaaday, haddana waa u geeyey. waxa ay u dhibsaday biyihii oo kor usoo doodoonay. wuxuu yidhi warniyo aniga nimankan ka hooseyno oo qaybta hoose joogno oo nasiib u yeelanay, maan qaybtaan hoose duleelino oo webiga halkaanba ka dhuuqno. dadkiina waxay isku raaceen taladii ay isku raaceen, waxayna bilaabeen doontii in ay duleeliyaan ayay bilaabeen. doontii oo la garaacaya ayaa qayb kor joogtay, waxa ay maqleen jugjugtii doonta ayay maqleen. ninkii naaquudihii ayay waxay dhaheen hoos waxaan ka maqlaynaa qaylo ayaan ka maqlaynaa, ee doonta miyaa la jebinayaa? wuxuu yidhaahday macquul ma ahan, meeshaan ayaan ku jirnaa, sidee doonta loo jebinayaa? waxay yidhaahdeen waxaan maqlaynaa sharqan. kadibna waxa ay soo aadeen qaybtii hoose ayay soo aadeen, ayaga oo raadinayo waxay jugta ka socota meeshii. mise waxay u imaadeen niman garweyn haysto ee salkii hoose doonta duleelinaya. wuxuu yidhaha war joojiya, maxaa doonta aad u duleelinaysiin? waxayna annaga waa oonnay, biyo ayaa inta ka rabnaa. war wuxuu yidhaahda biyaha kor ayaa usoo doonan karteen oo halkaasaa ka darsanaysiin, maxaa inta u duleelinaysiin? waxaynahayn kor nimankan xaq ayaa ka u yeeshay, annagana hoos ayaa xaqu leenahay. marka xorriyad waaye, anaga xorriyadda inaan naga qaadin, doonta intaan duleelshanaynaa. naaquudihii oo xanaaqsan ayaa wuxuu yidhaahday xorriyad beela, waraa maxay xorriyadda aad ka halaysaan? nafsaddeena ayaad halaagaysaan. haddii aad doontaan duleelisiin, sooma ogidiin biyo ayaa soo gelayo, dadka doonta saaran dhammaantoodna waa ay ku baaba'ayaan meesha, qaybta kore iyo qaybta hooseba. oo xorriyad aad ka hadlaysin waa tee? ma xorriyad baa xorriyadda aad qofka kale aad ku dhibaataynaysid? ma xorriyad baa qof xoolihiisa aad ku dheelaysid aad duleelinaysid? ma xorriyad baa xorriyadda aad ka hadlaysid ee nafsaddeena halaagayso? war wuxuu yidhaahday meesha u horeysa ciidanka aan la kulno waa idinku dacweynayaa, halkaas ayaana laydinku reebayaa. sababta xorriyadda aad ka hadlaysiin anigu ma fahmin. xorriyadda idiin balleysay qof kale waxa dhibaya ee xorta ah. halkaas ayaa ay doontii ku joogsatay qodowgeedii. dadkii saarnaa dhammaantoodna waxay dhaheen ilaahay baa mahad leh ee na badbaadiyey maanta, haddii aan jugta la maqli lahayn halkaas ayaan ku baabi'i lahayn. kadibna macallinka wuxuu u soo jeesanayaa xaamud. waxa uu yidhaahday xaamudow, qisadan wanaagga badan ee nebiga calayhi salaatu wasalaam inooga sheekeeyey maxaad ka fahantay? xaamudna waxa uu yidhaahday maanta unbaan fahmay macallin, waxa ay tahay xorriyadda. xorriyadda waa waxa aadan qof kale walaalkaa aadan ku dhibaynin. waxaad qof kale walaalkaa ah dhibaato u geynaysid ma ahan xorriyad. hadda ka hor waa maqli jiray xorriyad waxa ay tahay, laakiin maanta unbaa fahmay. macallinkii ayaa yidhaahday waa maxay waxaa horey u maqli jirtay ee aad maanta aad fahantay? wuxuu yidhi aabbayi dadku waxay ga sheekayn jireen qof walba xaq ayuu leeyahay, xorriyad ayuu leeyahay, laakiin maanta keliya unbaan fahmay xorriyadda aan leeyahay. waxaan xor u ahay wixii aniga i quseeyo ee aan qof kale walaalkiis aan dhibaatayneyn, shareecadana islaamka aan ka hor imaaneyn. macallinkana wuxuu yidhaahday aad iyo aad
ayaad u mahadsan tahay si wanaagsan ayaad u fahantay. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. allah subxaanahu wa tacaala waxa uuna leeyahay xaal idinka helo ummad dadka ugu yeerto khayrka, wanaagga farto, xumaantana ka reebto, kuwaasina waa kuwa liibaanay. taas waxaan ka fahmaynaa waxa ay tahay qofka oo khayrka la faro in ay tahay badbaadadaada. nimankan waxa ay duleelinayeen doonta, haddii aan la heli lahayn dad ka hor istaaga doontaas in ay duleeliyaan aanan laga heli lahayn doonta dhexdeeda, dhammaan dadka doonta saaran waa ay wada baabi'i lahayn markay biyaha soo galaan. laakiin waxaa laga helay dad wanaagga jecel oo dadkan wanaagga faray, xorriyadda waxa ay tahayna uga sheekeeyey. waxaana tusaale buuxo ayay inoo tahay. xaamudow, adigu maxaad ka fahantay qisadan? xaamudna wuxuu yidhahda macallin, waxaan ka fahmay aniga xorriyadda waxay tahay waa ka fahmay, in wanaagga la isfarana in ay wanaagsan tahay waan ka fahamnay. macallinkana wuxuu yidhaahday dhammaantiin aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay in aad si wanaagsan qisada u dhegaysataan. qisadana maanta halkaas ayay inoogu eg tahay. insha allah waa inoo mar kale iyo qiso kale oo nebiga calayhi salaatu wasalaam inoogu sheekeeyey. haddana waxaan diyaarinaynaa cashiradeena, qof kasta kitaabkiisa la soo baxo, cashirkana ha diyaariyo, mar dhow aan ka baxaynaa. وبالله توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.